بسم الله الرحمن الرحيم. وفتي وزيراء وشرح بنوده يعني كتبني إن كان كتشونا حريرة مدرسة عشاء كتشوني حنو الريو وكلا وفتي كتشوني وجورتيا لبدي الكي لبدا بيلها ولا لها ودقان حريرة وحيسو صورة معدن جل كيتش معها خميس الماتن كتشوني تشعي كوري صورة معدن فدقنا إلى سبتي إلى مانتا وانو لشريني waxaan xidhnay nabadii baa lagu dhaaray labada beeroodba ay labadaba ballan qaadeen in nabad lagu wada noolaado nabadnimada la xidho walaalo wixii dhibaato ee jiray iyo colaadaha la tuuro wixii nool loo taliyo taasaa go'aan lagu qaatay kadibna waxaanu gallay dilal muddo dheer soo taxnaa ilaa 82kii inuu hawshooda gallo waxa jiray 11 nin يا جواد ديل والله بيقولوا بحي وإلى اللي بيجي سديته كي صوت إحنا وحنا نقطة مركز حدينا بدي الحري إننا وحركة تجين يعني لما يسترنوا والدلال كأكل حكمنا خوب يتمن ديل رجعها يا جواد ديل الدلال وهي يتمن كي بوان أكل حكمنا إلى عشرة إلى ما تحكم كسعودي ما أنتو صور الماضي حكم كي وحي قرارها وحي مرخات لو هلي وحي دار اي واجبتي ولا كلا حكومي لبدي دينما سفي عنبا وحي وحكا قرار كان نقدي هايو قاتين iyagoo ka wada raali ah oo mafsuuda iyo labadiiba ku qanceen iyagu xiriyaashoodii wata go'aanka nabadeed iyo go'aanka loo kala qarqaaday dilalkii muddo dheer soo socday ilaa muddo imka laga joogo 13 sanadood soo taxnaa الحمد لله رب العالمين هلكا waxa lagu gaaray nabad marka wasiir waxa noo kala bayaamisaa 11 nin iyo gabadha ma guudahan baa mise waa kala sheegi kartaa labada dhinac waxay ahaayeen guudahan way ahaayeen waxa dacwadii la keenay 11 marka waxa isku wax qiraal noqday iyo wax qiraal noqon waayay yay ahaayeen waxay guudahan wixii la xumay ee marxaati loo doonay iyo maragfur anaga ay guurtidu waxaan tiradooda guud waxaan 12 ka qof yahay marka ma jiraan waxyaabo kale oo hanti ah oo labada beelood ka dhaxeeyo isku iyagana dacwada ku soo galeen waxa kamid ah waxyaabo beero oo iyada lafteeda hawlaha wado wixii dhul ah iyo runtii ay guud waxba wasiirka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada ee Soomaaliland Maxamuud Axmed Garaad barre Garaad waxa uu ka mid ahaa shantii xubnood ee golaha wasiiradaha iyo xubnihii guurtida ee shaqadii xariirad muddada 8 maalmood ugu maqnay marka wasiirku waxa uu ka waramayaa bal sidii waxay uga soo hawl galeen ee ay shaqadaasi u soo afjareen bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal Soomaaliland dariska marka hore waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa runtii labadii jilib ee reer Dudub iyo reer Geedi waxaan mahadnaq ballaaran u jeedin guddiga guurtida ay sii joogtay magaalada waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa gudoomiyihii guddiga wasaaradda Cabdi Daahir oo runtii hogaamin wanaagsan noo muujiyay iyo program aan ku sugnay nabadda waxaan tagnay magaalada xariirad bishan 13keedii maantana waa 18 waxaan ku dhameynaa arintaas maalmaha kooban dil dhacay 1982kii kii ugu dambeeyay dhacay 2013 dilalka dhacay oo muddada dheer soo jiitay runtii waxaan ku xalilnay muddo kooban oo qorshaysan oo mudaysan runtii oo markii hore waxaan sameynay in labada beelood aan ka dhaarinay 13 meela 14 meela iyo 14 12 waxay hayaan gudidii u xisaarnayd labada beelood min 12 baa 12 reer Duduba iyo 12 reer Geediya waxa markaan ku ladnay guddiga kala xiraalayaashii ah oo min 3 waxaan dhaarinay maalintii hore in ay arinta nabadgelyo daacad ka yihiin ma ku dhaarinay xubnaha aan soo sheegay maan labaadkii
waxaan u kala qaadnay xabaalqodkii waxaan ku xakunay qolo walba inay bixiso $1,000 qofkii doorana waa la keenay waxaa noo bilaabmay markaas warays dacwaddii oon bilownay oo qolo walba wixii ka dhintay iyo wixii ka dhawacaa laga soo bilaabo taariikhda ahaa aan sheegnay 1982 dilkii u dambeeyay ka dhacay xariirad 2019 arrintaasi arrin guul weyn u soo hitay shacbiga Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland ruuxaantii ammaanteedana uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrintan noo xil saaray ragga mudakarka ah arrintaa ku soo dheeyay muddada kooban aan soo sheegnay waxaan kaga nimid arrintii guurtidii sida u kala qaadi lahaayeen magahoogii iyo xabaalqodkii wixii ay isku qirteen taa wixii tafaasiila waxaan ka bixi doonaa gudoomiyaha golaha wasiirada Cabdi Daahir iyo tafaasiil ka bixi doona waxaan si aad iyo aad aan u xusayaa runtii oo taariikhda aniga igu suntan oo markii uu horeysay aan ka qayb galo arrin dil ah oo ka garnoqo weena cusleyd runtii maalintii oran tagnay labada beelood saas kuma eegi karin sax isma weydiineen midna mid kale ma eegin waxa sanadii wanaaga maalintii labaad ee suuqeenay ee dhaartii dhacday ee la bixiyay kafankii la bixiyay in ay ka wada fariisinay oo ay wada hadleen oo si fiican u wada hadleen markii dambe arrintu waxay noqotay inay yiraahdaan wixii annaka noo dhiibteen inuu nagu xukuma mar labaad oo isku celin waxaan inuu soo wada hadla arrinta soo jafa wax go'aan loo keena waxay arrinta inka niidibanay sidaan u been wax xukuma taasina go'aankaygu saakan dhiibnay saakan markay dhamaatay arrintaasi fatas iyo farxad iyo magaaladii la soo maray dhowr iyo 10 baabuur yaa la qaatay magaalada dhammaan soo maray wixii dumarha iyo wixii caruuraha iyo wixii mudakaraha oo dhan soo dhaweyn mushaharad iyo rayn kaga nimid waxaan arrintaas guul aan la filayn oo la dhammaan mayso yaan ka gaadhnay runtii aan ku dhamaynay ilaahay mahad